xulka kubadda cagta da'yarta Soomaaliya ayaa ciyaarta finaalka maanta oo Sabti ah waxay isaga hor imaan doonaan dhigooda Koonfurta Suudaan. Labada xul ayaa u soo baxay ciyaarta finaalka koobka kubadda cagta ee Bariga iyo Bartamaha Afrika kadib markii ay ka soo gudbeen ciyaarihii semifinaalka. xulka Soomaaliya ayaa maalintii Arbacada ahayd ciyaartii semifinaalka ka badiyay dhigooda dalka Uganda oo horyaalka ku guuleystay sanadkii 2020 oo tartankii ugu dambeeyay ahaa ee lagu qabtay dalka Rwanda. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa dhalinyarada matalaysa xulka Soomaaliya u sheegay in Soomaaliya oo dhan ay dhinacooda soo eegayaan ciyaarta kama dambaysta ah. sidoo kale waxa uu ballan qaaday abaalmarin weyn oo ay ku farxaan haddii ay ku soo guuleystaan iyo haddii aysan koobka soo qaadin. Marciale!